golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa maanta fadhi aan caadi ahayn oo ay yeesheen kulaalay digreeto wasiirka biyuhu ku soo magacaabay agaasimo cusub oo wakaalada biyaha Gabiley ay yeelanayso. Shirkaddan biyaha Gabiley ayaa waxaa hore gacanta ugu hayay shirkad madax bannaan oo qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Gabiley ay ku heshiiyeen, taasi oo in badan shacabka reer Gabiley sida fiinta uga qeyliyeen, iyagoo golaha deegaanka degmada Gabileyna ka dalbanaya inay dawladda degmada Gabiley la wareegto biyahani maadaama ay cunaqabataysay shacabka reer Gabiley. Tan iyo intii ay qabsatay shirkadani madaxa bannaan ee Samsam ee biyuhu, waxa uu cadaadis saarmay dadkii danyarta ahaa ee ka cabbi jiray kaawisyada maadaama laga xidhay kaawisyadii ama qasawadihii ay hore uga cabbi jireen dadkaasi masaakiinta ah oo dhammaanba albaabada loo laabay. maanta taariikhdu tahay 21 bishii 6 2016 bisha barakaysan ee Ramadaan ay tahay 16 waxa uu kalfadhi aan caadi ahayn isugu yimid golaha deegaanka degmada Gabiley hoolka shirarka golaha deegaanka kalfadhigaasi oo golaha deegaanku kaga hadlayay digreeto ka soo baxday wasiirka wasaaradda biyaha oo xaaladda biyaha ee magaalada Gabiley. digreetadaasi oo wasiirku ku soo magacaabay maareeye isla markaana uu meesha kaga saaray shirkadii gacanta ku haysay biyaha Samsam. golaha deegaanku maadaama aanay waxa weeye waxba kala socon digreetada wasiirka iyo go'aanka uu qaatay wasaaradda biyuhu ay qaadatay, waxay isugu yimaadeen shir aan caadi ahayn oo degdeg ah oo ay ku naaqashayeen xaaladdaas. golaha deegaanku iyagoo eegaya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 144aad iyagoo ka duulaya xeerka gobolada iyo degmooyinka ay ku shaqeeyaan golayaasha deegaanada dalku, khaasatan qodobka 17aad faqradiisa 3aad, iyagoo ka duulaya heshiiskii 3 qayboodka ahaa ee biyaha magaalada Gabiley lagu maamulayay, iyagoo ka duulaya siyaasadda hufan ee madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku maamulo dalka ee maamul daadejinta, iyagoo ka duulayo ixtiraamaya wada shaqaynta wasaaradda biyaha, waxa ay cod aqlabiyada ku joojiyeen oo kaga hor yimaadeen digreetada wasiirka wasaaradda biyaha. waxa golaha fadhiyay 18 xildhibaan 16 xildhibaan oo golaha deegaankii waxa weeye waxay u codeeyeen inay waxa weeye wasaaradda biyaha iyo khayraadku runtii hakisa arrintaasi. hal xildhibaan muu codayn, hal xildhibaanna uu diiday, iyagoo intaasoo qodob golaha deegaanka runtii ka duulay waxa weeye waxay ku hor yimaadeen arrintaasi wasaaradda biyaha. in badan golaha deegaanka runtii xaaladdaasi gacanta uu ku hayay. waxaan u magacaabay bishii 11aad guddi golaha deegaanka oo arrintaa gacanta ku haysay. guddigaasi halkay arrintu u taagneed ee u dambeysay waxa ahayd iyagoo ka sugayay ballan wasaaradda biyaha oo codsatay wasaaraddu intaynu arrintaa iskaga imanano wax go'aan oo tallaabood ka qaadan kartaan arrintaasi ma jirto, aanu ku ixtiraamnay wasaaradda maadaama wasaaradda wada shaqayn naga dhaxayso. balse waxa muuqata inaanay wasaaraddu tixgelin go'aankii golaha, aanay tixgelin oonay ixtiraamin mandate-kii golaha, aanay waxba iskaga tiray golaha deegaanka iyo mas'uuliyaddii biyaha aanu gacanta ku haynay ee aanu lahayn. taasi daraaddeed waxa weeye waxaanu aad iyo aad runtii uga xunnahay waraaqdaasi aan loo meeldayin ee wasiirku soo qoray. waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala in arrintaasi iska soo gabagaboobi doonto oo waxa weeye sifo sharciya runtii aanu isku eegi doono. inta ka horeysa go'aan aanu ka soo saarano arrintaasina shirkadda unba gacanta ku sii hayn doonta. waxa weeye qaranka Soomaaliland waxa ka socdan maamul iyo nidaam maamul daadajineed. waxaanu tijaabo iyo dadaal ugu jirnay inaynu daadajino oo qaranku daadajiyo waxa weeye adeegyada aasaasiga sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo deegaanka, iyagoo afartaasiba tijaabadooda ay degmooyinka kala duwan ee dalka ka socdaan. waxaanu filanay
golo deegaan ahaan inay wasaaraduhu nagu kaalmeeyaan daadejinta adeegyada aasaasiga ah xaq u leenahay nagalana shaqeeyaan laakiin umaanaan fadhiyin inay wasaaraduhu intii aanu awalba gacanta ku haynay ay dib ula noqdaan. waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka Case shabakada wararka ee Gabiley News Network magaalada Gabiley.